كم دول شوي كيك بين الهريركيان مالينا أنا دول شنرانا وأكون هي سكر هي عانو هي عربسة وحلا اسكو دردرة على قسمية waxay shaqada ka soo bilowday meel hoose 10 sano ka hor hooyadan Soomaaliyeed oo shaqo abuur u sameysay 15 qof oo isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo kiiba biila dad badan 10 qof waaya markay 15 qof 10 waxbay soo saartaa 5 way iib geysaa tani waa Cibaade Cali Ibraahim 15 waa rag laba dumar aan waa jiraan oo doolshada wareejiya waa 17 qof waaya 17 qof hadda yaa meesha si toos ah shaqeysa si toos ah shaqeysa oo intooda badan xaaslayaal ah waa wada xaaslayaal dad aad u rafaadsan weeyo hadda alxamdulillah rabbil caalamiin walba uu nolol maalmeedkiisa uu dabaranayo mulkiilaha laba warshadood oo lagu sameeyay buskudka doolshaha iyo xalwaha balha inooga sheekayso siday ku bilowday iyo heerarkay soo martay goobteeda ganacsi meeshani waxa lagu bilaabay lacag dad leeyahay baa lagu bilaabay formadii waa la dhisay deyn baa dukaamo laga soo qaaday lacag deynaha loogu duceeyay saxamo iyo balaayo qashin wax baa la isu keenay adii alxaasil rag baa shaqo ka bilaabay maanta ayaan ugu wanaagsannahay maalintii hore de sagxadda waxa sagxadda ka soo bilowday oo maalinta dambe hadana heerad dhibaa jira maalintii hore sagxadda laga soo bilaabay maanta alxamdulillah rabbil caalamiin aniga iyo inta joogto waan maalinta aad baan ugu nimcaysanahay waxay soo qabatay shaqooyin kala duwan sida ay sheegtay aniga shaqadan intaan bilaabin markii hore horta waxaan sameyn jiray sambuuska iyo sabaayadana waan dibi jiray dhacalaan hadana galay qudaar baan hadana galay maalin baan marba meel aan isiraado meeshan waad ku yara dhibaataysan tahay meel kale kaga bedelo heerar badan baan soo maray makhaayad baa hadda iigu dambeysay waan iyadoo dhowr sano shidayay hadda lultima meeshan aan hadda ayaan ku nagaaday jaadata waa soo gaday darxumo meel walba waa soo galay darxumo meel walba waa soo galay alxamdulillah rabbil caalamiin barmuuda waa halkii wax walba waa sameeyay ma garan haddaba ma jiraan caqabado soo food saaray shaqadeeda baa waxa laga yaabaa roobka duud oo xaabada la waynay rooti wixii ay ku qasan yihiin rooti la waynay mar waxa jira ninka ku shaqeynayayba uu ku iimaanayninba mid baa ku qooshaya wuxuu ku leeyahay reerkii aan gaariya reerkii isaga dhexdooda problem ka abuurmaya roodida ku qoosho buu kaaga tagayaa mid baa hadda sidaas oo kale buskudka shalay waa la ii keenay kii shaqeynayay qolo reer baadiya waxay dheen roodiha noo sameeyay roodida reer baadiya loo sameeyay wuxuu yiri shaqaba meesha lagu hayaa laba shaqo miyaan isla qabanaya wuu iskaga tagay dadkii buskudkii waa la kala qaatay galabtii ilaa wax sameynay mari marka caqabad saas oo kale taajira mar suuq xumaa dhacaysa meesha fornooyinka magaalada way badan yihiin mar isku yeelis baa dhacaya waana hadda baabuur baan ku wareejinaa ujeedka sheekadan ayaa ah muujinta haldoorka bulshada iyo dhiirigelinta kuwa shaqaysan in la shaqaysto ayaa wanaagsan intaad nooshahay oo dhaqaaqi karto in la shaqaysto wanaagsan 10 saac bay nimanka caaw 11 saac bar halkan waa la imaanaya roodhida dadka xalay gudbayay annaga subax ku soo gaaray hadana 3 saac bay nimanka tagaa marka cisho la tukada kadib marka hadda qof oo yar nami qof weyn baan ahay rafaad ma ku soo kacaya maanta dhan marba dhinac waan u fariisanaya dhinacay dhulka ma dhigo intaas hadda maalihi maxay ahayday dad baad wax ugu taraysaa laakiin inaan aniga naftayda iyo nafta waalidkayga iyo dadka islaamka wixii ka gaar aan difaacayaan rabaa oo aan Cibaade Cali Ibraahim ayaa baaq u dirtay dadka aan shaqaysanay iyadoona daliishatay mahmaahdii ahayd qof aan shaqaysanin shaah ma cabo dadka aan shaqaysanada waxaan ugu baaqi lahaa nin aan shaqaysanin shaah waa ka xaraan bay Soomaali tiri Soomaa marka Soomaalida waxay dhihi jirtay fadhi iyo fuud cibna waa la isku waayay fuudka iyo cibka iyo fadhina waa isla waaya la dhihi jiray marka qof aan shaqaysan qof waxa haystaba ma aha waa qof aan kaan ku dhacday wax kasta aniga waxaan adduunka isku dayir ma laha Maxamed Baaruud Xuseen warbaahinta Star Dadaab